mustafa maxamed cumar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waraysi uu siiyay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu uga hadlay doorashooyinka la filayo inay Itoobiya ka dhacaan bisha Agost iyo waliba isbedelada dhinaca cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha ee uu sameeyay tan iyo markii uu talada qabtay bishii Agost sanadkii 2018 warbixintan waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwac. mustafa maxamed cumar oo hore shaqaale gargaar u ahaa iyo qof u dhaqdhaqaaqa bulshada hadda waa madaxweynaha gobolka Soomaalida hase yeeshee waxa uu haystaa 7 bilood ka hor inta aanay shacabku mar kale u codayn isbedeladiisa. Mas'uuliyiinta Itoobiya ayaa toddobaadkii hore u gooyay 16 August xilliga ay dhacayso doorashada xorta ah ee Itoobiya ee uu ballan qaaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. codaynta ayaa tijaabo u noqon doonta in Abiy Ahmed uu ku guulaystay taageerada shacabka ay argagax geliyeen sanado caburin ah iyo dhiigga weli daadanaya oo ka dhashay rabshadaha qoomiyadaha. madaxweynihii hore gobolkan Cabdi Maxamed Cumar ayaa mas'uul ka ahaa olole arxandara ah oo ka dhan ahaa dadkii lagu tuhmayay ururka ONLF sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International. madaxweyne mustafa ayaa ka hadlay waxa uu kala kulmay maamulkii Cabdi Cumar. The regional president, you have to say there is peace and development in Somali region, or else we are going to... waa inaad ammaantaa madaxweynaha gobolka, waa inaad sheegtaa inay nabad iyo horumar ka jiraan gobolka Soomaalida. haddii kale waxaan tallaabo ka qaadaynaa xubno ka mid ah qoyskaaga, waxaan kufsan doonaa walaasha, waxaan dili doonaa hooyada. waxaan joogay Muqdisho oo aan u shaqaynayay qaramada midoobay markii dilku u dhacayay, waxay ahayd xilli aad u adag. Cabdi Maxamed Cumar ayaa hadda loo maxkamadaynayaa inuu huriyay isku dhacyo qoomiyadeed. waa uu beeniyay eedamahaasi mar wax laga weydiiyay inuu ka hadlo qareenka Cabdi Iskandar Geesehegen. waxa uu sheegay in Cabdi Cumar aan lagu soo ogin dacwado ku saabsan xadgudub xuquuqda aadanaha. Abiy ayaa fasaxay ururka ONLF iyadoo taa beddelkeeda ay ballan qaadeen inay ku lug yeelan doonaan siyaasad nabad ku dhisan. mustafa ayaa hadda burburinaya dhismooyin ay kooxda xuquuqul aadanuhu ku sheegeen in loo adeegsan jiray in lagu xabiso, lagu jirdilo, laguna dilo kumanaan qof. waxa uu xidhay xabsigii caanka ahaa ee lagu naanaysi jiray jeelowaadeed kaasoo lagu yiqiin in dadka lagu jirdilo. waxa uu magacaabay hantidhowro qaran si uu u baadho hannaanka maaliyadda dowladda, waxaana uu dib u tababaray ciidamada sida militariga u tababaran ee liyu boolis. saxafiyiinta iyo hay-adaha gargaarka oo markii hore la mamnuucay ayaa hadda xor u ah inay ka shaqeeyaan gobolka. waxa uu yidhi dad badan waxay hadda dareemayaan inay xor yihiin, in cadaaladdarradii aanay hadda kadib jirin. sidaa daraaddeed waa arrin wanaagsan. hase yeeshee waxaan u malaynayaa inaanay weli wax badan ka qaban maxkamadaynta kuwii ku xadgudbayay xuquuqda dadka. sidaasi daraaddeed dhinacaasi wax badan ayaa loo baahan yahay in laga qabto oo ay ku jiraan mid loo qabanayo qoyskayga. mustafa ayaa rajaynaya in doorashooyinka August ay midayn doonaan dalka, isla markaana ay khayraadka u jahayn doonaan gobollada la dayacay. hase yeeshee taxliiliyaasha siyaasadeed ayaa rumaysan in aqlabiyad uu helo xisbiga Abiy oo mustafa uu ka mid yahay aanay ahayn wax damaanad qaadan. rabshado siyaasadeed iyo weliba kuwo qoomiyadeed oo ay huriyeen madaxda goboleedyada ka soo horjeeda isbedelada Abiy Ahmed ayaa sidoo oo kale halis ku ah doorashada. xoogaga doonaya deganaanshiye la'aanta weli lagama guulaysan ayaa uu yidhi mustafa.